raxiim runta waaye gudoomiyaha wuxuu yiri ilaa baarlamaanka 11aad laga gaaray waxa shaqeynay baarlamaankan waa run heshiiskii dara dhacay oo ahaa doorashada dadbaneed iyo maamul goboleedyada iyo dawladda ay ku heshiiyeen jadwalku ahaa jadwalku wuxuu qorayay 10 ilaa 20 Oktoobar magacaabista guddiga laba heer ahayd inay maamul goboleedyada ay soo gudbiyaan ilaa ay hadda maamul goboleedyadii qaar kood ma soo gudbinin labo dhismaha iyo tababarka guddiga in la furay ahayd 20 Oktoobar ilaa 31 Oktoobar ilaa ay hadda dhismahaas iyo tababarkii guddiga ma furmin qaarkood guddiyadii waa maqan yihiin saddex soo xulista diyaarinta ergooyinka iyo codbixinta goobaha lagu qabanayo doorashada waxay ahayd 1 November ilaa 3 November in la dhameeyo ayay ahayd ilaa ay hadda wax laga qabtay male afar doorashada aqalka sare inay dhacday ahayd 1 December ilaa 10 December inta u dhaxayso waa dareemi kartaa waa la soo dhaafay wax haba yaraatay aqalka sare oo la doortayna ma jirto ilaan kuwii ka horeeyay oo magacaabistii labada heer gobol ma la dhameystirin dhismihii iyo tababaradii guddiga ma la sameeynin soo xulistii diyaarintii ergooyinkii ma la sameeynin doorashadii aqalka sarena 1 December inay dhacdo ilaa 10 December lama sameeynin qodobka shanaad waa 6 qodob doorashada xildhibaanada golaha shacabka waxaa la rabay inay dhacdo 10 December maanta ayaantee waay 12 waay ma dhicin ilaa 27 December waxa harsan waa gudoonkii iyo madaxweynaha oo 1 January ilaa 8 February runtii waa dareemi kartaan in meeshan haba yaraatay doorasho loo socon inay dhacdo waa ka warqabtaan maamul goboleedyadu waa diidan yihiin waa ka warqabtaan guddiyadii ma dhameystirna sababaha ku kalifay gudoomiyaha oo waa qodob dastuuri ah oo dhigayo ilaa baarlamaan kale ka imaanayo inuu baarlamaankan shaqeeyo marka waxaan u sheegaynaa 5 bilood iyo 6 bilood oo qorshaha balaanka ay soo sameysteen nimankii maamul goboleedyadii iyo xukuumaddii ay ku heshiiyeen in doorasho dadban la qabto waa dhamaatay waxa harsan waa maxal lahaye dareemaysa December lagu jira January iyo February 5 bilood qorshahoodii balaankii wuu fashilmay sida daraadeed waxaan rabnaa hay'adda dastuuriga maxal lahaye iyo baarlamaankan labadiis aqal inay go'aan ka gaaraan runtii wadanka waa la socotaan wuxuu u sii socdaa maxal lahaye meel aad u qabdaran waa dareemaysaa in maxal lahaye laba guddi doorasho la sameeyay taliyaal ciidamo la magacaabay markaan in shacabka siday ku badbaadi lahaayeen dagaal sokay uusan dhicin waa inuu baarlamaanka go'aan ka gaaraa maxal lahaye arintan waa xilligii baarlamaanka go'aan uu ka gaari lahaa waay taladii ay gudoonsadeen oo ay saxiixeen doorashadii dadbaneed oo madaxweynaha ugu weynaa ay maxal lahaye maamul goboleedyadii waxa ka socda waa xogasho waay dib inuu yimaado laga yaabaa marka anaga dibkaasaan diideynaa hay'adan baarlamaanka labadiis aqal waa inay go'aan degdeg ka gaaraan aniga qorshaha aan soo jeedinayo saas waaye waqtigii ay ugu tala galeen qorshahoodii balaanka ahaa oo 6 qodob oo lagu heshiiyay oo doorashadii dadbaneed ahaa qorshihii wuu dhamaaday waa la fulin waay Soomaa markaan waxa hadda uu sheegay gudoonka anaga hawshan waa sii wadanaynaa ilaa baarlamaanka la naga bedelay laakiin yaa la sugino maxal lahaye 8 February waa inaan helnaa madaxweyne cusub aniga waxaan soo jeedin lahaa tale ahaan madaxweynaha maxal lahaye inuu xilka baarlamaanka ku soo wareejiyo gudoonkana baarlamaanka uu ku soo wareejiyo odayga ugu weyn meesha la doorto baarlamaankan qabto maxal lahaye doorasho madaxweyne in anaga aan qabanno waay wax kale banaan ma leh sababtan ku sheegay waa ka warqabtaa doorashadii hal cod iyo hal qof waa la diiday doorashadii dadbanna waa lagu heshiin waay Soomaa markaan baarlamaanka ay u taalaa shirkadda World Remit waxay ku daafurtay adeegyada xawilaadaha ee Soomaaliya hadda si ammaan ah ayaad lacag ugu diri kartaa qoyskaaga iyo asxaabtaada ku nool wadankii hooyo ku soo biir malaayiin macmiil adduunka ah oo lacagaha si fudud oo ku habboon ugu dira dadka ay jecel yihiin soo dejiso noocii u dambeeyay ee barnaamijkeena aaladda telefoonka ama booqo worldremit.com geli xaddiga lacagta iyo faahfaahinta qofkaad u dirayso lacagtiina way dirsantay bixin maysid wax khidmad ah saddexda lacag dirasho ee kugu horeeya adeegga World Remit adigoo isticmaalaya koodka 3FREE